السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saaxiibayaal kuna soo dhawaada muuqaal kaloo cusub iyo qiso kaloo cusub. saaxiibayaal haddii aad channelka cusub tahay soo dhawow, subscribe inoo saar. haddii aad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar si uu saaxiibo far badan u gaaro. intaa kadib hore aan usii galno muuqaalkeena maanta. qisadeena maanta waxay ku bilaabanaysaa sida tan. waxay ahayd xaas wanaagsan oo alla ka cabsi badan, laakiin xaaskan muddo 5 sano ah wax awlaad ah ilaa kuma arsaaqin. laakiin waxay ahayd mid sabarta, alla subxaanahu wa tacaala u mahad celisa. mar walbana alla waxay ka baryaysay inuu awlaad ku arsaaqo. markuu qof u imaado oo arrintii la xumeeyo, adiga wax un arrinteeda ka dhahana way u dhoola cadeynaysay. waxayna xasuusinaysay xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasallam, kaasoo ahaa farxadda qofka bini'aadamka waxaa ka mid ah inuu raalli ku ahaado wuxuu alla u qoray. nacasnimadiisana waxaa ka mid ah inuu ka caroodo wuxuu alla u qoray. macnaha mar walba qofka waxaa laga rabaa inuu ku qanco wuxuu alla u qoray. 5 sano kadib xaaskii alla ducadeeda wuu aqbalay, waxayna qaaday uur. aaday u faraxday, alla ayayna u mahad celisay. kadib bishii 4 uurkeeda, xaaskii ninkeeda waxay aadeen isbitaal si ay u hubsadaan xaaladda cunugooda. laakiin waxaa layaab ku noqotay dhakhtaradoo dhehaysa cunugan wuxuu u ekayay ukhdabuud. ukhdabuud af soomaali kuma aqaan, laakiin waa xayawaan madax iyo 4 lug meelahaas leh. insha allah sawirkiisa ayaan soo dhigi doonaa. marka waxay dhahday cunugiina noocaas ayuu ekyahay, waa in laga soo ridaa hooyadan si uusan dhib ugu keenin. taa waxay dhahday waxaa laga yaabaa markay dhalayso inay xaalad khatar ah gasho, xitaa nafteeda ku weedo. ninkii xaaskiisa way baxeen, waxay tageen isbitaalo badan, laakiin isla jawaabtii ayaa la siinayay. xaaskii waxay ku adkaystay inaan cunugeeda la soo ridin, laakiin ninkeedu wuxuu dhahay waa in laga soo ridaa cunugan, waayo naftaada ayuu khatar ku yahay. laakiin xaaskii way diiday, waxayna ku adkaystay inaysan cunugeeda dilin, ayna raalli ku noqonayso wuxuu alla raalli ugu yahay. macnaha waxay ka wadaa cunugan alla ayaa isiiyey, sidaana alla ayaa ka dhigay, anigan raalli ayaan ku ahay. kadib ninka wuxuu buriyey xaaskiisa oo wuxuu dhahay aad guriga qoyskaaga. laakiin xaaska waxay ahayd qof wanaagsan, ninkeeda kama caroon, laakiin waxay xasuusisay xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasallam, kaasoo ahaa inuu alla subxaanahu wa tacaala haween walba usoo degaya samaa dunyaa, uuna baaqi ahaanayo ilaa xilliga dambe habeenkii. kadib wuxuu dhahayaa yaa i baryayo aan ka ajiibaa, yaa wax i weydiisanayo aan wax siiyaa, yaa dembi dhaaf i weydiisanayo oo aan u dembi dhaafayaa. laga bilaabo maalinta xaaskii waxay go'aansatay in ay salaatuleyl haween walba dukato. waxay ahayd mid salaad dukataa, waxay ahayd mid ducaysataa, waxayna u duceynaysay awlaadeeda. mar walbana alla waxay ka baryaysay inuu ku arsaaqo awlaad caafimaad leh, ilaa ugu dambeyn uurkeeda u weynaaday. markan xitaa waxaa dhib ku ahaa rukuuca iyo sujuudda, laakiin ma ahayn mid joojisa. iyadoo daashay, iyadoo tacabtay, habeenkii ay soo jeeday, haddana waxay ku adkaystay in aysan salaatuleylka joojin. alla ayay baryaysay, weliba iyadoo oynaysa. ugu dambeyn waxaa la gaaray xilligii dhalmada. waxaa dhacday arrin mucjiso ah. ehelkeeda ayaa waxay u waceen ninkeeda oo waxay ku dhaheen kaalay carruurtaada arag. ninkii wuu yaabay, isagoo yaaban ayuuna guriga ka baxay, wuxuuna aaday isbitaalka. kadib wuxuu arkay xaaskiisoo 4 mataan dhashay, 2 gabar iyo 2 wiil. laakiin arrintaasay ku dhacday. arrintan waxay ku dhacday 4 cunug waxay ku jiraan raximka hooyada, weliba qaab aan la fahansaneyn. xitaa kombiyuutarku wuu awoodi waayey inuu 4 cunug arko, oo mar walba kombiyuutarka la fiiriyo waxaa soo baxaya wax si kale ah. marka sidaa ayay dhakhaatiirtu dhahayeen cunugan waa in la soo ridaa si uusan hooyada dhib ugu keenin. adiga alxamdulilaah, ugu dambeyn xaaskii waxay dhashay 4 mataano. aadday u faraxday, alla subxaanahu wa tacaala ayay u mahad celisay. sujuudu shukri ayay u dhacday, kaasoo ku arsaaqay awlaadan, weliba iyagoo laga quustay. laakiin iyada mahan mid quusataa, arrinteeda dhan waxay u dhiibatay alla subxaanahu wa tacaala. allana wuxuu ugu bedelay bedel khayr qaba. wayna saamaxday ninkeeda, kaasoo ka dalbaday saamaxaad. 5tii sano cunug la-aanta ahayd, murugadii soo wajahday, haweeno badan ay soo jeeday, xanuunkii iyo dhibkii badan ay martay. alla subxaanahu wa tacaala intaas madeecin oo arrinteeda wuu u xeliyey. alxamdulilaah. saaxiibayaal, qisadeena halkaa ay ku eg tahay. marka qisaan maxaan ka baran karnaa? marka hore waxaan ka baran karnaa inuu qofka xaaladii si kasta u adag tahay, si kasta ay murugada usoo wajahdo, si kastay arrimaha isugu harxiran yihiin, inuu alla subxaanahu wa tacaala tala saarto oo uu taladiis alla u dhiibto. sidoo kale waxaan ka baran karnaa fadliga uu leeyahay salaatuleylka iyo siduu alla subxaanahu wa tacaala u daalacnayo quluubteena. marka saaxiibayaal, mar walbaad dhib la kulunto, mar walba aad murugooto, mar walbaad cidhiiri gasho, isku dhiib alla subxaanahu wa tacaala, isagaa arrimaha ku xallin doono. saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku eg yahay. inta aynu muuqaalka dib ugu kulmi doono, ammaano alle.
wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.